dhegaystayaal duurjoogta maamaha loo saariyo waxaa iyaduna ka mid ah gorayada oo loo haysta inay tahay shimbiraha ifka ku nool midda ugu weyn teeda lab waxay soomaalidu ku magacowdaa haldhaa gorayna waa la yidhaahdaaye teeda dhadigina waa haldhure ama waa gorayo cawl waxay leedahay laba adin oo dhuudhuuban iyo cagal laba suul oo qura ka kooban wax kalena aan lagu ogeyn goor noolba raxan bay u daaqadaa una wada socotaa ugaarsigeeda soomaalidii hore kama wada sinayn bulshada badankeeduna hilbaheeda ma cuni jirinoo way ka caagaleen waxaa waagii ay dhulka ka buuxi jirtay ugaarsan jiray kooxa gaara oo ka mida kuwa la haybsooco waase lagu caayi jiray inkastoo qolyaha ku caayaya ay mar walba iyagaas ka tuugi jireen subageeda kaasoo lagula tacaali jiray cudur ay soomaalida keliyihii taqaano qaras ama dacar ay ku magacowdo haldhaagu waa goraygee wuxuu leeyahay laba garab oo aad u qurux badan midabkooduna madow iyo caddaan uu isugu jiro baalasha garbahaas ayay soomaalidii hore ka ganacsan jireen intay urursadaan ayay muddo kadib waxay u safarsan jireen magaalooyinka xeebaha ku yaal ee doonyaha shisheeyuhu ay ku soo xiran jireen dabadeedna markii carro edeg la geeyo ayaa sida la yidhi waxaa laga samayn jiray barkimaha iyo gogosha kale ee qaaliga ah dadka ladanina ay ku seexan jireen